الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها قولها قورتده كسمها قدوميها قولها وكيلده حبنها شرقدون ده يحل لبعنا الله وضع قال برلمان كجمهورية الصومال الله قدوميها محكمة الصلاة ماذا حسبية قرنك حبنها قولها وسيفده فلياش عيدا ماذا كردوون قرنك قدوميها قدق النبضة ولا صاحب قبل كمرود الشاح طوع عاصمة هرقيسة وقامياش بالشدة قيبه هذا كردوون هوينك بنا يرضى يقود هام بمواطنين الجمهورية الصومال الله قد يدبدبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومي مدنياش حلبانada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland sharaf weyn bay tahay in aniga u gudanayo waajib dastuuri ah inaan hor imaado fadhigan wada jirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland si aan idinka warbixiyo halka ay marayaan hawlaha qaranku iyo jihada aynu uga sii dhaqaaqayno jamhuuriyadda Soomaaliland waa shamaca xasiloonida nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo daris wanaagga ee gobolka geeska Afrika inkasta oo ay caqabado badani ka hor yimaadeen siyaabo kala duwanna la isugu dayay in la hagardaameeyo haddana wuxuu alla ku guuleeyay inay sugto ammaankeeda inay dhisto dawladnimadeeda iyo inay haladay iyo qorshe ku maamusho himiladeeda iyo horumarkeeda taas oo soo jiidatay indhaha dunida sababna u ah in maanta ay si joogto ah u soo kordhayaan saaxiibada iyo jaalka aynu dunida ku yeelanayno mudane gudoomiye markasta aynu qiimeynayno hor socodkeena iyo guulaha aynu gaari karno waxa khasab ah inaynu naqaano halka aynu ka nimi caqabadaha runta ah aynu hor yaalla iyo halka aynu ku socono xukuumadda wadajir iyo xaqabad ee aan garwadeenka ka ahay waxay shaqada bilowday 12 bishii 12aad 2024 iyadoo dalka ka jiraan duruufo adag oo ay ka mid yihiin culaysyo dhaqaale oo soo jiitamay nabadgelyada gobolada bariga ee dalka oo dib ugu noqotay gacanta ciidamada madaniga xoolaha oo laf dhabarta dhaqaalaheena oo ay waxyeello badan ka soo gaadhay abaaraha iyo dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada waxa iyaguna soo noqnoqda dhibaatooyin nabadgelyo oo ka dhasha isku dhacyada beelaha walaalaha ah kuwaasoo damintooda iyo ka hortagoodaba ay ku baxaan waqti iyo dhaqaale badan si kasta ha ahaatee xukuumaddu waxay ku guuleysatay la tacaalista dhibaatooyinkaas iyadoo kaashanaysa golayaasha qaranka iyo bulshadeeda taas ayaana suurtagelisay in caqabado badan laga gudbo maanta mudane gudoomiye guul kasta oo qaranku gaadhay alla sokadii waxa sabab u ah amniga iyo deganaanshiyaha oo ku yimi nidaamka dawladnimo aynu abuurnay iyo difaaca nafurka ah ee ciidamadeena halyeeyada ah oo mudan bogaadin joogto ah sanadka 2025 xukuumaddu waxay qaaday talaabooyin lagu xoojinayo dhismaha iyo casriyeynta ciidamada kala duwan ee qaranka waa ciidamada si rasmi ah ugu soo biiray 6,000 oo askari oo tababarkoodii dhamaystay waxaana meel fiican maraya qorshaha diiwaangelinta naafada iyo agoomaha ciidamada dubahayn ballaaran ayaa lagu sameeyay nidaamka maamul ee maaliyadda ciidamada iyadoo la abuuray habka lacag bixinta telefoonka gacanta oo suurto gelinaya in askarigu uu mushaharkiisa si toos ah ugu helo telefoonkiisa meel kasta oo joogo waa markii ugu horeysay 35 sano ee la aasaasay hay'adda howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada kala duwan ee qaranka waxay ka shaqeyn doontaa in halyeeyada naftooda u horay qarankooda ay nasiimo iyo xuquuq heli doonaan insha Allah ta'ala tayeynta iyo dhismaha xirfadaha ciidanimo ayaa si gaar ah diiradda loo saaray iyadoo dib u habayn
iyo casriyeyn lagu sameeyay nidaamka tababarka iyo manhajka dugsiyada tababarka ciidamada lana kobciyay aqoonta macallimiinta sidoo kale ciidamada lagu xoojiyay agab saanad iyo gaadiid cusub waxa la aasaasay cutubka amniga internetka ciidamada qaranka iyadoo oo sidoo kale la dhameystiray dhismaha xarunta kaydka xogta ciidamada waxa lagu guuleystay in ciidanka qaranku uu yeesho dirays sugan oo u gaar ah iyadoo la hirgeliyay warshad ay dirayskooda ku tashaan iyo warshad soo saarta qaybo ka mid ah doonigooda joogtada ah waxa la mamnuucay ka ganacsiga labiska iyo agabka kale ee ciidamada dhammaan meheradii ka ganacsan jiray waa la xiray iyadoo labiskii iyo agabkii ay gacanta ku hayaan dawladdu la wareegtay lana siinayo magdhow dhigma waxa la xoojiyay iskaashiga amni iyo difaac aynu hore ula lahayn saaxiibada caalamiga iyadoo oo dalal kale oo cusubna la soo kordhiyay waxa markii ugu horeysay la curiyay istiraatiijiyadda amniga qaranka oo si waafi ah u qeexaysa qorshayaasha difaaca iyo ilaalinta dalka muwaadiniinta iyo danaha qaranka mudane gudoomiye nabaddu cid kasta waa u dan colaaduna dadka dunyada iyo deegaankaba waa ku khasaare colaadda sokeeye markay tahayna waa kaa dhimay oo kugu dhimay oodiyada abka dhow cid kasta oo alle meel ku wada beeray way ku khasban tahay inay nabad iyo wanaag ku wada noolaato dulmiga iyo dhiigga muslimka ee xaqdarrada lagu qubaya waa cadhaal leh abaaraha iyo nolosha oo inagu adkaatana way sababaan dadka walaalaha ah ee galbeedka shaqaqadu ku dhex martay waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ay wada qaateen adkeeyaan xukuumaddu dadaalo badan ayay gelisay sidii colaadaasi u joogsan lahayd iyadoo arrintaas tala qaran kala yeelatay shirgudoonka labada aqal madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga uu hogaaminaya horumar badan ayay ka sameeyeen nabaddaas waana sii wadi doonaan ilaa nabad buuxda ay xidhanto cidna ka ogolaan mayno inay horiso colaado cidda ay ku caddaatana tallaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadi doonaa wax kasta oo la kala tabanayo sida dhaqankeenu yahay islaamkuna ina farayo wada hadal baa lagu dhamayn karaa qof kasta oo erey arrin iyo adduun nabadda ku darsan karana waxaan ka codsanayaa inuu gacan ka geysto ergada madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayo sii xoojiyo gobollada bari xukuumaddu dadaal badan bay gelisay hubkii waaweynaa waxa uu ku soo noqday gacanta xukuumadda oo keliya nasiib wanaag dhinaca sanaag nabaddu way xidhan tahay wixii hadba khilaaf soo noqdana si midaysan ayaynu dhan looga soo wada jeesan doonaa insha allah dhinaca kale ee sool tan iyo markii xukuumaddu talada qabatay xidhiidho nabadeed oo kala duwan ayay la samaysay walaalaha laascaanood waxaanu ku rajo weynahay in arrintaasi u dhammaato sidii sanaag u dhammaatay sool bari waa dad aanay somalilan inteeda kale kala maarmi karin dhiig iyo dhaqan way wadaagaan haddii qaladaad dhaceen iyo haddii dhib la kala tirsanayaba waa arrin aynu wada jir xal waara uga gaadhi karno waxaan u mahadnaqayaa guddiga madaxda dhaqanka ee garaad kulmiye hogaaminayay oo dhowr jeer buuhoodle iyo laascaanood ugu tegey erge nabadeed horaantii 2025 waxaanu ergadaas u sheegnay in jamhuuriyadda somalilan ay dhisayso guddi nabadeed diyaarna u tahay nabad iyo isdhaafsiga maxaabiista oo aan shuruud lahayn iyo la furo isu socodka ganacsiga iyo dadka qodobadaas oo jawaabtooda aanay ilaa hadda naga soo gaadhin laascaanood mudane gudoomiye
xukuumaddu waxay xoogga saartay xoojinta maamul wanaagga iyo dib u habaynta nidaamka cadaaladda waxayna maamul daadejin u samaysay adeegyada dawladda waxa la kordhiyay dib u habaynta lagu sameeyay xarumaha garsoorka bulsho ee degmooyinka kuwaas oo u garnaqa bulshada door muhiimna ka qaata nabadaynta iyo xalinta khilaafaadka intaanay maxkamadaha gaarin ajendaha xukuumadda ee dib u habaynta iyo hirgelinta maamul wanaagga waxa uu dhexaad u ah la dagaalanka dhammaan noocyada musuqmaasuqa oo ay ka mid yihiin musuqa maaliyadda iyo hantida qaranka maamul xumada iyo ku tagrifalka awoodaha iyo sharciga waxa xukuumadda u qorshaysan dejinta nidaam iyo habraacyo waafaqsan shuruucda oo lagu xoojinayo kartida iyo aqoonta shaqo ee hay'adaha qaranka oo xil saaran ilaalinta iyo adkeynta maamul wanaagga cadaaladda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa mudane gudoomiye noocyada dambiyada sanadkii 2025 dalka ka dhacay waxay muujinayaan inuu wali sareeyo heerka manduuriyaha dhaca fudud kufsiga iyo dilalku gaar ahaan magaalooyinka waaweyn dadka ugu badan ee dhibanayaasha ah ama dambiilayaasha ahina waa daayarta u dhaxaysa 15 jir ilaa 25 jir taasi waxay nagu baraarujinaysaa baahida loo qabo in waalidka macalinka culimada golayaasha qaranka iyo xukuumadduba iska kaashadaan wanaajinta barbaarinta ubadka waxaan u mahadnaqayaa ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dadaal badan geliyay ka hortagga iyo la dagaalanka dambiyada sanadka 2025 shilalka gaadiidka 8% ayay hoos u dhaceen dilkuna 7% ayuu ka yaraa kii sanadkii 2024 mudane gudoomiye mudanayaal dib u dhacyada doorashooyinku waxay khatar ku yihiin dimuqraadiyadda xasiloonida siyaasadda iyo sumcadda caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta ay dunidu u soo jeesatay jiritaankeenana way ka sii dhaawac badanaysaa aragtidayda madaxweyne iyo siyaasadda xukuumadayduba taas ayay ku salaysan tahay waxaan dadaal badan gelinay in doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanku ay waqtigooda ku qabsoomaan waxa se marar badan in maquuninaya xaaladaha siyaasadeed aynu la noolnahay iyo abaaraha soo noqnoqda wadaxaajoodyo badan iyo gorfayn aan arinta kala yeeshay daneeyayaasha waxa ka soo baxay in arinta go'aankeeda loo daayo komishanka doorashooyinka qaranka oo farsamo ahaan sharcigu u jideeyay iyaga waxaan dhawaan idin soo gudbinayaa soo jeedinta komishanka doorashooyinka qaranka si aad uga gudataan waajibkiina waxaan si codsanayaa in muddada farsamo ee komishanku soo jeediyay loo tixgeliyo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo wali isku taagin ayay dhisatay nidaam dimuqraadi ah duruuf kasta oo soo martayna way diiday in tareenka dimuqraadiyaddu mar kaliya istaago anigana waxay ka go'an inaan awoodayda isugu geeyo sidii aynu hirgelin lahayn talaabada labaad oo ah xoojinta dimuqraadiyadda iyo ilaalinta doorashooyinku in waqtigooda ku qabsoomaan mudane gudoomiye cadaaladda iyo maamul wanaaggu waxay ka bilowdaan wanaajinta iyo horumarinta shuruucda iyo ku dhaqanka oo sax ah shuruucda waxa ugu sareeya dastuurka ay ka farcamaan dhammaan xeerarku dastuurkeenu wuxuu ka mid yahay guulaha ugu qiimaha badan ee qarankeenu gaadhay saldhigna u ahaa dhismaha dawladnimada aynu ku faanayno si kastaba ha ahaato dokumenti kasta oo bini aadam sameeyay kama maarmo in lagu sameeyo kaabis iyo wax ka bedel si loo daboolo wixii galdaloolo ku soo baxa si uu la jaan qaado hadba waayaha la joogo iyo duruufaha isbedbedelaya waxa loo baahan yahay kala xadeynta awoodaha waayaha dawladda iyo qeexidda awoodaha iyo hanaanka ay wada shaqeynayaan hay'adaha dastuuriga si loo helo wax wada lahaanshiyaha
iyo isu dhammaanshiyaha talada qaranka saamiga matalaadda gobollada ee kuraasta golayaasha la doorto iyo qorshaha horumarineed ee dalka waxaa muhiim ah in la abuuro nidaam daahfuran oo lagu saleeyo sidaa awgeed waxaa xukuumadda u qorshaysan inta lagu jiro muddo xileedkan koowaad in la sameeyo tiro koob qaran sidoo kale aniga oo fulinaya ballanqaadkii xilligii doorashada madaxtooyada lagu jiray waxaan magacaabi doonaa guddi farsamo oo daraasad ku samaysa baahida loo qabo kaabista dastuurka iyo habraaca loo mari karo mudane guddoomiye horumarintu waxay ka bilaabantaa xasilinta iyo kobaca dhaqaalaha iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ee kala duwan waxaa muhiim ah in la helo dhaqaale ku fadhiya asaas adag oo adkaysi u yeelan kara caqabadaha kaga imanaya gudaha iyo dabaddaba sanadkii 2025 xukuumaddu dadaallo badan ayay gelisay horumarinta dhaqaalaha iyo nidaamka maaliyadda ee dalka waxaana la hirgeliyay in dakhliga dawladda uu ku wada dhaco khasnad keliya taas oo fududaynaysa maamulka iyo ilaalinta lacagta iyo hantida qaranka inkastoo xiisada ka jireen badda cas haddana sanadka 2025 dhaqaaluhu kor u kac ayuu sameeyey waxaa kordhay dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee dekedda berbera iyo shixnadaha ganacsi ee soo maray oo boqolkiiba 7 ka badnaa kii sanadkii hore waxaa wadamada khaliijka loo dhoofiyey 3 milyan iyo 600 oo kun oo neef oo isugu jira geel lo iyo ari iyo hilib gaadhaya 16 tan sidoo kale waxaa kordhay dhoofka kalluunka noocyada xabkaha iyo macdanaha dhammaantood sanadkaas miisaaniyadda qaranku waxay kordhay 20% marka la barbar dhigo sanadkii ka horeeyay iyadoo dhinaca kalena la xakameeyay kharashaadkii ay xukuumaddu geli jirtay oo la dhimay 9%. si kastaba ha ahaato xukuumaddu waxay gashay deymo lagu fuliyey qaramayntii ciidamada madaniga ahaa la wareegista qalabkii iyo gaadiidkii ciidamada madaniga ahaa mushaahar kordhinta ciidamada qaranka iyo hawlaha nabadaynta iyo amniga maadaama kharashaadkaas oo dhammaantood aanay ku jirin miisaaniyaddii 2025 mudane guddoomiye xooluhu waa laf-dhabarta dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa awgeed xukuumaddu mudnaan gaar ah ayay siinaysaa xoojinta daryeelka caafimaadka iyo ka ganacsiga xoolaha sanadkii 2025 waxa daryeel caafimaad iyo daaweyn loo sameeyay 3 milyan oo neef oo isugu jira noocyada kala duwan ee xoolaha waxa dib loo furay in ka badan 63 xarumood oo lagu daryeelo caafimaadka xoolaha halka xarunta daryeelka caafimaadka xoolaha oo casri ah laga hirgeliyay caasimadda Hargeysa waxa si casriyeyn iyo tayeyn lagu sameeyay xarumaha horumarinta iyo cilmi baarista xoolaha ee aroori wajaale iyo gar adag sidoo kalena waxa lagu guuleystay in la xidhay banka qool caday oo waxtar weyn u yeelan doona xoolaheena mudane guddoomiye beeruhu waa khayraad dihin oo door muhiim ah ka qaata xoojinta dhaqaalaha iyo sugidda amniga cuntada waxa la hirgeliyay mashruuca horumarinta beeraha ee banka wajaale 204 beeraley ah ayaa lagu tababaray la dagaalanka cudurrada iyo cayayaanka ku dhaca beeraha waxa beeraleyda la siiyay qalab caawiya kordhinta wax soo saarka sida mashiinada biyo soo saarka qalabka waraabka ee biyaha tashiila iyo aqalada cagaaran waxa la qoday ama la dayactiray baliyada beeraha lagu waraabiyo ee deegaanada qaarkood kuwaas oo lagu rakibay qalabka qorraxda korontada ka dhaliya beeraley kala duwan ayaa la siiyay dhiirigelin maaliyadeed halka qaarkoodna lagu wareejiyay cagafyada qodaalka oo ay bulshada isku deegaanka ahi wadaagayaan mudane guddoomiye xukuumaddu waxay dadaal gelisay dhiirigelinta kobcinta ka ganacsiga kalluunka 200 oo kalluumaysato ah ayaa la siiyay tababaro la xiriira kalluumaysiga casriga ah iyo kaydinta kalluunka 600 oo kalluumaysatada ka mid ah waxaa loo qaybiyay talaajado ay kalluunka ku kaydsadaan iyo qalab
kalluumaysi oo casri ah mudane gudoomiye 2025 xukuumaddu waxay shaqooyin fiican ka qabatay kaabayaasha aasaasiga u ah ee saamaynta tooska ah ku leh nolol maalmeedka muwaadiniinta waxa ka mid ah horumarinta adeegyada biyaha iyo laydhka iyo fududeynta helitaankooda mudane gudoomiye jidadku waxay muhiim u yihiin kobaca dhaqaalaha midnimada bulshada nabadgelyada gaaritaanka adeegyada dadweynaha iyo guud ahaanba dhinacyada horumarka qaranka inkasta oo ay jiraan caqabado dhaqaale haddana xukuumaddu iyadoo og muhiimadaas weyn ay wadooyinku u leeyihiin waxay go'aan ku gaadhay in horumariso wadooyinka isla markii ay talada la wareegtay waxay bilowday wadada Hargeysa Balgubadle iyo Boorame Baki duruufaha kala duwan aynu ka soo warranay ayaa dib u dhacyo keenay laakiin nasiib wanaag marnaba ismay taagin dhismaha wadooyinkaas maanta waxa la dhameeyay 60% wadooyinkaas waxaan ku rajo weynahay in sanadka 2026 ay dhamaadaan labada waddo hadii la yiraahdo waxa iyaduna hadda gabagabo ah diyaarinta mashruuca ugu weyn dhinaca wadooyinka ee abid Somaliland laga fuliyo waa wadada loo yacdo fardaha Boorame oo inaga caawinayo banka horumarinta Afrika dhawaan ayaa insha Allah la dhaxdhigaya wadadaas mudane gudoomiye waxa sahamin xeel dheer lagu sameeyay khayraadka biyaha ee dalka si loo helo xog sugan oo hagta maamulka iyo horumarinta kaabayaasha biyaha waxa la kobciyay aqoonta iyo xirfadaha shaqo ee halwadeennada biyaha waxa kamid ah khubaro biyaha oo aqoon iyo waaya arag kororsi loogu diray dalka Israa'iil oo aad ugu hormaray maareynta biyaha magaalada Boorama 420 ayaa hoos loo dhigay qiimaha biyaha qasabadaha halkii mitir kiyuub sidoo kale waxa la joojiyay in sicirka biyaha lagu saleeyo lacagta dollarka si aan qiimuhu isu bedelin si dadka iyo xoolaha loogu fududeeyo gaaritaanka biyaha nadiifta ah 72 ceel biyood ayaa la qoday ama la dayactiray gobolada kala duwan waxa la qoday 16 balle oo qayb ka ah qorshaha qabashada iyo ka faa'iideysiga biyaha roobka waxa muwaadiniinta lagu dhiirigeliyay maalgashiga biyaha iyadoo dhowr magaalo laga hirgeliyay nidaamka iskaashiga dawladda iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay Triple B qorshaha xukuumaddu waa in la helo biyo nadiif ah helitaankooduna fudud yahay qiimahoodana la iska bixin karo mudane gudoomiye laydhku lagama maarmaan ayuu yahay horumarka dhaqaalaha wuxuu qayb ka yahay wax soo saarka khayraadka dabiiciga ah warshadeynta ganacsiga casriga ah caafimaadka iyo waxbarashada waxa farxad weyn inoo ah in sanadkii tagay lagu guuleystay dhimista qiimaha laydhka ee dalka magaalada Berbera oo ugu maahib badnayd waxa la gaarsiiyay 20 senti dalka intiisa kalena 29 ayaa la dhimay qiimaha laydhka ku talagalka fog ee xukuumaddu waa in qiimaha dalka la wada gaarsiiyo 20 senti dhammaantii insha Allah ta'ala waxa boqolkiiba 24 la kordhiyay korontada qorraxda laga dhaliyo oo bangiga adduunku inaga caawiyay korarkaasi wuxuu yareynayaa ku tiirsanaanta korontada laga dhaliyo shidaalka oo qaali ah waxa socdo qorshe layd bilaash ah lagu siinayo xarumaha caafimaadka iyo waxbarashada ee deegaanada magaalooyinka ka fogfog iyada oo ay gabagaba ku dhowdahay qaybtii ugu horeysay oo ah 46 xarumood oo caafimaad iyo 57 xarumood oo waxbarasho oo lagu rakibayo laydhka qorraxda laga dhaliyo oo awood leh oo bilaash ah mudane gudoomiye xukuumaddu waxay qaaday
tallaabooyin lagu kordhinayo kaabayaasha tiknoolajiyadda laguna xoojinayo awoodda ay jamhuuriyadda Soomaaliland u leedahay ka faa'iidaysigeeda waxaa dhammaystirmay qorshaha fidinta xadhigga internetka xawaarihiisu sarreeyo ee fiber optic oo dalka oo dhan la isku xidhayo mashruucaas ay xukuumaddu fulinayso waxay naga caawinayaa bangiga adduunka waxaa gebagabo ku dhow howlgelinta xarunta kaydka xogta National Data Center oo asaas u noqonaysa amniga xogta qaranka iyo hirgelinta nidaamka maamul elektarooniga ah ee xukuumadda kaasoo muwaadiniinta u fududeyn doona helitaanka adeegyada dawladda si loo cariyo urinta dhalinyarada loona kobciyo dhaqaalaha dijitaalka ah ee dalka waxaa la soo kordhiyay tartan sanadle ah oo ay dhalinyaradu ku soo bandhigayaan halabuurkooda tiknoolajiyadda kaas oo ay ku helayaan abaalmarin qaran oo madaxweynuhu guddoonsiinayo xiddiga sanad kasta kaalinta koowaad gala mudane guddoomiye in dal ku tiirsanaado dhaqaale uu ka helo hal khayraad waxay nuglaysaa dhaawaca ka dhalan kara haddii dhibaato ku timaado khayraadkaas ama uu xidhmo suuqii la geynayay in dhaqaalaheenu koritaankiisu xasilo waaritaanna uu yeesho waxay u baahan tahay inaynu la soo baxno khayraadkeena dabiiciga ah ee tirada badan una helno suuqyo kala duwan iyo warshado taasina ka maarmi mayso inaynu maalgashi u helno mid dabadeed iyo mid gudeedba waxaa lagama maarmaan ah inaan khayraadkeena dihin aynu dunida tusno inaynu abuurno kalsooni lagu heli karo maalgashi dibadeed iyo inaynaan fursadaha sugin ee aynu raadinno sidaa awgeed waxaanu ka qayb galnay shirar caalami ah oo muhiim u ah dhaqaalaha laba jeer waxaan ka qayb galnay shir madaxeedka dunida World Government Summit oo isu keenay marti ka badan 6,000 oo ka kala socda 150 dawladood kuwaas ay ka mid yihiin madaxweynayaal hogaamiyayaal siyaasadeed kumanaan isugu jira maalgashato iyo khubaro dhaqaale waxa kale oo fursad ka helnay shirka madasha dhaqaalaha adduunka ee Davos dalka Switzerland waa kulanka ugu saameynta badan dhaqaalaha adduunka ee jaanguuya ajendaha dhaqaalaha ee caalamiga ah waxaanu isagana ka qayb galnay shirka dhaqaalaha Afrika oo xooga saara horumarinta dhaqaalaha dalalka qaaradda Afrika iyo fursadaha maalgashi ee ka jira oo lagu qabtay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta shirarkan waxaa nooga suurto galay ololayaal aanu shirkadaha caalamiga ah iyo maalgashadayaasha iyo maalqabeennada dunida ugu bandhignay khayraadka istiraatiijiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo fursadaha maalgashi ee diin ka qaybgalka shirarkan waxay si weyn u kordhisay ka muuqashadeena fagaarayaasha caalamiga ee dunida waxay kor u qaaday ogaalka maalgashatada caalamiga ah ka haystaan khayraadkeena waxay albaabo cusub u furtay fursadaha maalgashi ee dalkeena shirarkaas waxaan kala soo noqonnay rajo weyn oo aad u sarreysa oo aan jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah mustaqbalka dhow heli doonto maalgashi badan waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan ganacsatada muwaadiniinta ah ku dhiirigeliyo maalgelinta warshadaha yaryar iyo beeraha xukuumadduna hawl fududayn badan ayay u samayn doontaa mudane guddoomiye saamaynta uu dagaalka bariga dhexe ku keenay marinada Hormuus iyo Bab al-Mandab iyo furdadaha shidaalka laga raraa waxay keentay dhibaato dhaqaale oo dunida oo dhan saameysay waxa kacay qiimaha shidaalka rarka maraakiibta iyo caymiska gaadiidka badda taasoo sababay sicir barar aad u badan iyo hubanti la'aan ku dhacday suuqyada badeecadaha muhiimka ah gaar ahaan Soomaaliland oo maciishadeeda shidaalka iyo badeecadaha asaasiga ah dibadda looga soo dhoofiyo waxaanay saameyn ku yeelatay dakhliga dawladda oo isku celcelis 3% uu hoos u dhac ku yimi oo daraska 3 biloodka koowaad ee sanadka 2016 xukuumaddu
waxay qaaday tallaabooyin ku xoojinayso ka hortagga waayitaanka shidaalka iyo raashinka iyo la socoshada qiimaha suuqa waxa kale oo ay ku guda jirtaa iyadoo la kaashanaysa ganacsatada raadinta ila kale oo aynu ka heli karno shidaal iyo raashin casharka ugu muhiimsan ee xaaladani ina baraysa waa inaynu kordhino wax soo saarka gudaha gaar ahaan beeraha iyo cuntada taas oo sidaan marar badan ku celceliyay ay xukuumaddu dhiiri gelinayso kana shaqaynayso maalgashigeeda gudaha iyo dibaddaba mudane guddoomiye dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada waxaa ka mid ah abaaraha soo noqnoqday biyo yaraan xaaluf iyo carraguur khatar gelinaya nolosha xoolaha amniga cuntada iyo xasiloonida dhaqaalaha dhowrista deegaanka waa mas'uuliyad qaran oo ay xukuumaddu mudnaan sare siinayso sidaa awgeed waxaa la hirgeliyey barnaamijyo lagu xoojinayo ilaalinta deegaanka dhirbeerista iyo u adkaysiga isbeddelka cimilada sanadkii tegey waxaa la beeray 600 oo kun oo geed sanadkana intaa in leeg ayaa la beerayaa insha allah waxaa sidoo kale tababaro heerkoodu sarreeyo la siiyey hawlwadeennada daryeelka deegaanka iyo la qabsiga isbeddelka cimilada iyo xubno laga soo xulay deegaanada mudane guddoomiye qaranka horumarkiisu wuxuu ka bilowdaa maalgashiga dadkiisa horumarka aynu u soconnaa wuxuu u baahan yahay bulsho waxbaratay caafimaad qabta karti iyo awood shaqo leh mudane guddoomiye waxbarashadu waa raasamaalka ugu saamaynta badan ee aynu gelin karno dhallinyaradeenna waxbarashadu waxay tayaysaa xuduudda shaqaalaha waxay kobcinaysaa hay-adaha qaranka waxaana inagu hagaysaa jidka saxda ah aynu u mari karno horumarinta dalkeena xukuumaddu iyadoo aragtidaas ka duulaysa ayay mudnaan gaara siisay horumarinta waxbarashada waxaa la dhisay 36 dugsi oo isugu jira hoose dhexe sare iyo barbaarinta ubadka 120 fasalna waxaa lagu kordhiyey dugsiyo kala duwan oo ardayda cidhiidhi ku noqday dhinaca tayada waxaa dib habayn iyo casriyeyn lagu sameeyey manhajyada waxbarashada ee dugsiyada hoose dhexe manhajka tababarka macallimiinta manhajka waxbarashada maxaabiista iyo manhajka dugsiyada farsamada gacanta kuwaasoo isugu jira qaybo dhammaaday oo la dhaqan geliyey iyo kuwo dhammaad ku dhow waxa waxbarasho sare aqoon kororsi iyo tababaro loo furay in ka badan 2,000 oo isugu jira macallimiintii hore iyo kuwa hadda la diyaarinayo kormeerayaal maamulayaasha dugsiyada heerar kala duwan kuwaas oo 600 ka midi ay dumar yihiin waxa la shaqaalaysiiyey 106 macallin oo dumar ah xukuumaddu waxa ka go'an in la dhiso nidaam waxbarasho oo awood u leh in da'yarteena u diyaariyo mustaqbalka mudane guddoomiye sanadka 2025 waxa xukuumaddu hirgelisay nidaamka xogta kaydinta caafimaadka qaranka si kor loogu qaado tayada qorsheynta isku dubaridka iyo maamulka caafimaadka ee dalka oo dhan waxa qalab caafimaad iyo daawooyin la gaarsiiyey 142 goobood oo isugu jira xarumo caafimaad iyo cisbitaallo si kor loogu qaado adeega ay dadweynaha siiyaan waxa tababar kala duwan la siiyey 2546 hawlwadeennada caafimaadka oo isugu jira dhakhaatiir kalkaaliyayaal mihnadayaal kale oo caafimaad waxa la bilaabay dhismaha cisbitaalka qaran ee takhasuska kala duwan ee ay dawladda Taiwan inaga caawinayso kaas aan ku rajo weynahay inuu wax badan ka tari doono baahida caafimaadka ee caasimadda iyo nawaaxigeeda dawladda Imaaraadka Carabta aynu saaxiibka nahay waxay sanadka 2026 magaalada Burco ka bilaabi doontaa cisbitaal casri ah oo bixiya adeegyo caafimaad oo leh takhasusyo kala duwan mudane guddoomiye
maadaama oo tirada ugu badan bulshadeenu ay tahay dhalinyaro in la maalgeliyo mustaqbalkooda waa mas'uuliyad xukuumadda mudnaan siinayso sida waxbarashada shaqo abuurka isboortiga iyo ka qaybgalka hawlaha bulsho ee dalka si loo dhiirigeliyo isdhexgalka dhalinyarada loogana mashquuliyo barashada balwadaha iyo anshax darrada waxa la dhammaystiray 7 garoon oo si buuxda oo casri ah loo diyaariyay sidoo kale dhalinyaro kala duwan ayaa loo diray ka qaybgalka munaasabadaha isboorti oo caalami ah oo ay hayd fursad ay ku soo kororsadeen waayo-aragnimo ciyaareed oo kor u qaadaysa isboortiga dalka sidoo kalena qadiyadda iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayay gaarsiiyeen fagaarayaasha adduunka si halkaas hore looga sii socdo xukuumaddu waxay sii wadi doontaa shaqo abuurka dhalinyarada iyo in la dhiirigeliyo waxbarashada farsamada gacanta iyo xirfadaha oo muhiim u ah shaqo abuurka iyo horumarinta dhaqaalaha mudane gudoomiye siyaasadda xukuumadda waa in muwaadiniintu aanay aad ugu kala tegin heerka nolosha waxayna xil gaar ah iska saaraysaa ka warqabka bulshada nugul iyadoo aragtida laga duulayo ayaa guryo loo dhisay 101 qoys oo ka mid ah muwaadiniintaas halka 200 oo qoys oo barakacyaal ahna la siiyay dhul hanti ah qoysas tiradoodu tahay 400 ayaa iyagana la siiyay lacag cadaan ah oo loogu talagalay inay meherado yaryar oo ganacsi ku maalgashadaan mudane gudoomiye yoolka siyaasaddeena arrimaha dibadda waa jamhuuriyadda Soomaaliland oo hesha aqoonsiga ay xaq u leedahay iyo inaynu dawladaha ka rabno jaalnimo istiraatiiji ah oo ku dhisan dana isdhaafsi mudane gudoomiye mudanayaal siyaasadda arrimaha dibadda waxa hagaya mabaadi'da nabadda iskaashiga iyo xiriir xilkasnimo iyo sinaan ku dhisan aynu la yeelano dunida sanadka 2025 diblomaasiyadeenu waxay culays ka saartay kordhinta galaangalkeena caalamiga ah inaynu yeelano saaxiibo istiraatiiji ah iyo inaynu dardargelino aqoonsi raadinta aqoonsiga ujeedadiisu maaha xiriir diblomaasiyadeed oo kaliya balse waa wado loo maro fursado badan oo maanta ay dalkeena iyo dadkeenuba u baahan yihiin aqoonsiga caalamiga ah wuxuu soo jiidanayaa maalgashatada wuxuu fududeynayaa ganacsiga dibadda wuxuu noo furayaa hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah wuxuu sii adkaynayaa iskaashiga ammaanka aynu dalal badan la leenahay wuxuu noo furayaa inaynu xubinnimo ka helno ururada gobolka iyo kuwa caalamiga ah waa fursad jamhuuriyadda Soomaaliland u suurtagelinaysa inay door ku yeelato xasiloonida gobolka ammaanka badda cas iyo gacanka cadmeed iyo iskaashiga geeska Afrika iyo dunidaba maadaama ay noo muuqatay muhiimadaas uu aqoonsigu inoo leeyahay muddo dheerna dadkeenu la'aantii caqabado badan u haysteen waqti dheer iyo dadaal badan ayaanu gelinay aqoonsi raadinta dawladda Israa'iil waa dawladdii koowaad ee ku dhiiratay go'aan adag dawladda Israa'iil waa dawladdii koowaad ee ku dhiiratay go'aan adag oo ay ku aqoonsatay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aaminsanahay inay noqon doonto saaxiib la isku halayn karo kelina
kuma noqonayso ee dalal kale ayaa mustaqbalka dhow in aqoonsan doona waxa kale oo iyaguna jira dalal raba inay nala yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed iyo wada shaqayn aqoonsi u dhigma guulahaas jamhuuriyadda Soomaaliland u soo hooyday cadow badan ayay madowga iyo boholaha ka soo saareen waxaana meelo badan laga abaabulay dhagaro ka dhan ah qarankeena iyo ictiraafkeena labadii naaqal ee baarlamaan hay'adaha kala duwan ee qaranka bulshada rayidka ah iyo dhammaan muwaadiniinta dalka waxaan ka codsanayaa inay si isku mid ah isku duubni ah kalsooni badani ka muuqato u soo dhaweeyaan guushan iyo guulaha daba socda mudanayaal iyo gudoomiyaba dhammaanteen aynu isku kaashano difaaca qarankeena dib u aqoonsiga taariikhiga ah ee aynu helnay iyo xiriirka diblomaasiga ah ee aynu samaynayba waxay ka turjumayaan in dunidu fahamtay qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo in ka badan 60 sanadood been laga sheegay muddadii aqoonsiga ka dambeysay jamhuuriyadda Soomaaliland waxay martigelisay wafdiyo u badan diblomaasiyiin madaxeedeed oo caalami ah iyo kuwa goboleed iyo maalgashayaal caalami ah oo tiradoodu aad u badan tahay arrintaas waxay muujinaysaa inay kor u kacay danaynta ay dunidu u hayso xiriirka Soomaaliland xasiloonideeda nidaamkeeda dimuqraadiga iyo kaalinta istiraatiijiyeed ay ku leedahay gobolka geeska Afrika gacanka cadmeed iyo baddaas si loo dhiso xirfadaha howlwadeennada diblomaasiyadda Soomaaliland waxa la aasaasay macadka diblomaasiyadda Soomaaliland oo tababaro heerkoodu sareeyo siiyay difacadii ugu horeysay ee diblomaasiyiin ah si loo diyaariyo jiil cusub oo xirfadooda diblomaasiyaddu dhisan tahay dunidana ku meteli kara Soomaaliland mudane gudoomiye jamhuuriyadda Soomaaliland mudnaan gaar ah ayay siisaa in xiriirka wanaagsan ay la yeelato dalalka jaarka waxaan aaminsanahay mabaadi'da jaar wanaagga ixtiraamka iyo nabad ku wada noolaanshiyaha maadaama oo gobolka xasiloonidiisu iyo horumarkiisu ay isku xidhan yihiin Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay xiriirka dalalka sii xoojiso iyadoo xaq dhowraysa qarannimadooda xuduudahooda iyo arrimahooda gudaha iyagana sidaa oo kale ka filaysa waxaan u mahadnaqayaa dalka Itoobiya oo muddo aad u dheer jamhuuriyadda Soomaaliland la lahaa xiriir caafimaad qaba oo isqadarin ku dhisan walaalaheena gobolka aynu ku wada dhaqannahayna inta ayaan ka badan ayaan ka filaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxay diyaar u tahay xiriir aan qarannimadeena waxba u dhimayn oo la iska kaashado danaha la wadaago waxa kamid ah nabadda amniga fududaynta isu socodka xoojinta iskaashiga dhaqaalaha ganacsiga xuduudada isaga gudba dhismaha kaabayaasha ammaanka badda ilaalinta deegaanka iyo guud ahaan xasiloonida gobolka
dawladda xamar waxaan ugu baaqayaa inay garowsato in qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland gaadhay meel aanay dub u aqbalaynin ka soo noqosho maanta jidka keliya ee u furan Soomaaliya waa inaan noqono laba dal oo walaalo ah oo jaar wanaag ka dhaxay taas diyaar baanu nahay waxaanu leenahay ku qanaca xaqiiqada runta ah in Soomaaliland noqotay dal madax bannaan oo la aqoonsaday waxaan idin xasuusinayaa baydad ka mid ah maansadii gudgude ee Allah u naxariistee abarad raawi garowshiyo jeeraan ka helo gaanka dunidayda jeeraan gaala baxo arlada goodi iyo goodi jeeraan gufaacada ku tago meela gariyaada gaaliye islaamkaba ilaa taydu wada gaadho bari iyo galbeedkaba ilaa la iga gacan qaado guray iyo islow iyo hurrow gabaygu waa been gododlaysan maaye tashiga waan guddoonsaday waxba yaan indhaha laygu gubin gaabsi ma aqaan mudane guddoomiye inkasta oo 2025 ay hawlo badan inoo qabsoomeen haddana wali shaqo ka sii badan ayaa inoo taala waxaa jira caqabado nabadgeliyo oo marar kala duwan hadba meel ka dhaca iyo xaaladaha gobolka bariga dhexe iyo badda cas oo cakiran waa caqabado inaga dabraya in sidii la rabay aynu hore ugu socono mudane guddoomiye mudanayaal sanadka 2026 waxa xukuumaddu xooga saaraysa adkaynta dhidibada uu dhaqaaluhu ku taagan yahay taas oo ay ugu horeyso inaynu sii kordhino dadaalka aynu ku raadinayno ka faa'iidaysiga khayraadkeena dihin sida macdanta kordhinta wax soo saarka beeraha kordhinta maalgelinta xoolaha iyo kalluumaysiga kordhinta wax dhoofinta dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo maalgelinta adeegga bulshada oo ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada biyaha iyo leyrka ugu dambayn mudane guddoomiye inaynu gaadhno himiladeennu waxay u baahan tahay iskaashi xooggan oo ay yeeshaan hay'adaha qaranku inaynu xoojinno isku duubnida dadkeena iyo kalsoonida ay ku qabaan dawladnimada waxaan idinka mahadnaqayaa xeerarka aad hore u curiseen ama ansixiseen ee xukuumadii Soomaaliland ee kala dambeeyay idin soo gudbiyeen xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxay diyaarisay siyaasadaha iyo istiraatiijiyadaha hagi doona qaybaha kala duwan ee shaqada ay qaranka u hayso sidoo kalena waxay curisay ama wax ka bedeliye kaabis ku samaysay xeerarka xayndaabka u ah shaqadaas kuwaasoo qaarkood idin hor yaalaan kuwa kalena aanu dhaqso idinku soo gudbin doono xukuumadayda waxa ka go'an
لما يستركه شروعه يدغجلين تحررك إذا كصوبها يسيدوك عليه سياستها يستراتيجيها أي دجسه waxaan si gaar ah idinka mahadnaqayaa gudashada waajibaadkiina iyo iskaashiga iyo wada shaqaynta danta qaran ee naga dhaxaysa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan xubnaha haweenka ee ka soo qayb galay golaha maanta fadhigiisa Allah barakeeyo Soomaaliland Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha jirto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi